السلام عليكم soo dhawaada asxaabta waan salaamaya guud ahaan bahda ku xiran kanaalka maanta waxaan idin wadaa mowduuc runtii aad u xiiso badan oo ku saabsan akhrinta quraanka kariimka ah hadaba qof waliba waa uu og yahay ama waa uu dareemi karaa faa'iidada uu leeyahay akhrinta quraanku maanta waxaan ka codsanayaa qof waliba oo casharkan daawanaya in uu casharkan ka dhigo casharka ugu daawashada iyo like-ta badan casharadii aan kanaalka soo gelinay maadaama uu ku saabsan yahay quraanka kariimka oo ah hadalkii Allah subhanahu wa ta'ala waxaan kaloo si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad kanaalka aad subscribe gareyso maxaa yeelay casharadan quruxda badan darta ayaan u soo diyaarinaa wahagaag hadaba casharkan waxaan ciwaan uga soo dhigay reciting the Quran akhrinta quraanka The Prophet Nabigu sallallahu alayhi wa sallam nabadgelyo in naxariis korkiisa ahaatee said waxa uu yiri on the day of judgment the day of judgment waa maalinka qiyaamaha waa maalinta xukunka oo dadka oo dhan ay soo hor istaagi doonaan Allah subhanahu wa ta'ala hortiisa maalinka qiyaamaha the Quraanku will intercede wuxuu u shafaaca qaadi doonaa for the devotee erga devotee waxa la yiraahdaa waa shakhsi kaasoo aad u daneeya una ilaaliya una xafida shay hadaba marka qofka quraanka xafdiya ilaaliya mar walba akhriya oo ku dadaala ayaa devotee la dhahaa marka quraanku uu u shafaaca qaadi doonaa devotee-ga wuxuuna dhihi doonaa oh Allah ya Allah this devotee-gan ama ilaaliyahan ama xafidkan lost wuxuu u lumiyay his night sleep hurdadiisii habeen wuxuu u lumiyay for my sake aniga darteyda ayuu u lumiyay kindly sin naxariis leh accept u aqbal my intercession shafaacadeyda u aqbal on his behalf anigoo asiga matalaya quraanka hadii Allah subhanahu wa ta'ala uu ku shafaaco weydiyo balka waran walaal qaaliya waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa inaad quraanka aad xafidaan oo arnolba aad akhrisaan intii aad ka gaarto wahagaag kadib maxaa dhacaya Allah will guarantee its request Allahne wuu u damaanad qaadi doonaa codsigiisa Allah will guarantee wuu ugu deeqi doonaa its request codsigiisa on the day of judgment maalinka xukunka ama maalinka qiyaamaha oo qof waliba uu shafaaco raadinayo everyone cid walibana will be looking for waxay raadin doontaa help caawin ay raadin doontaa maalinka just as people kaliya sida dadku do ay sameeyaan today maanta when markii they are brought la keeno before a court maxkamadda horteeda to answer si uga jawaabaan a case ama a case loo haysto si uga jawaabaan sida dadku ay u raadinayaan caawin ayaa maalinka qof waliba uu caawinaad u raadin doonaa waa maalinta Allah subhanahu wa ta'ala la hor taagan yahay sida maanta dadka markii maxkamadda la hor keeno uu qof waliba uu u raadinayo qareen wanaagsan oo wax walba uu u sameeyo sidii uu uga jawaabi lahaa kiiskaas maxkamadda la hor keenay uu caawinta u raadinayo ayaa maalinkaas caawin loo raadin doonaa dabcan qofkii adduunka ku shaqeysta ayna caawimadaas heli doono wahagaag wuxuu leeyahay jumlada kale they look for waxay raadinayaan waxa laga hadlayaa dadka markii maxkamad la hor keeno qaabkii wax u raadinayaan ayaa marka hore lagu tusinayaa they look for waxay raadinayaan the best lawyers qareenada ugu fiican ay raadinayaan ilaan maxkamadda la hor keenay case ayaa lagu haystaa inay ka jawaabaan they are prepared waxay diyaarinayaan waxay u diyaar garoobayaan to pay inay bixiyaan any fees lacag walba inay bixiyaan oo the lawyers asks for oo qareenadu ay weydiistaan lacag walba oo qareenadu ay weydiistaan ay bixinayaan si ay u difaacaan oo ay maanta u furdaamiyaan maxkamadaas ay hor taagan yihiin si looga furdaamiyo ay lacag waliba ugu bixinayaan ajiib marka according markii loo eego to the hadith of the prophet xadiiskii nabiga markii loo eego the quraanku is our best lawyer waa qarankeena ugu fiican on the day of judgment maalinka qiyaamaha Allahu akbar bal ka waran maalinka qiyaamaha hadii quraanka kariimka oo adiga qareen ku noqdo ka waran oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku shafaaco weydiyo oo adiga ku dooday bal ka waran and will ask forgiveness wuxuuna cafis u weydiin doonaa alle ayuu cafis u weydiin doonaa for those kuwaasoo recite akhriya erga recite waa akhrinta forgivenessna waa cafiska kuwa quraanka akhriya quraanku cafis ayuu u weydiin doonaa Allah subhanahu wa ta'ala maalinka qiyaamaha
page ka xiga the Quran waxay raacsan tahay page-kaas oo ahayd who recite the Quran. The Prophet Nabigu sallallahu alayhi wasallam has also shown us wuxuu sidoo kale inoo muujiyey shown waa past of show marka wuxuu inoo muujiyey ama uuna tusay the many benefits faa'iidooyinka faraha badan oo we get aynu ka helayno from reciting the Quran akhrinta Qur'aanka. The Prophet Nabigu said waxa uu yiri for reading akhritaanka each letter xaraf walba for the Quran ee Qur'aanka 10 virtues are recorded 10 wanaag ah ayaa lagu diiwaan gelinayaa ama 10 xasanaad ah ayaa lagu diiwaan gelinayaa ereyga recorded waa diiwaan gelin ama qorid virtuesna waa wanaag ama xasanaad cajiib marka erey walba oo aad akhriso 10 wanaag ah ayaa lagu diiwaan gelinayaa wuxuu kaloo yiri I don't say that ma dhahayo buu leeyahay in I don't say ma dhahayo that in alif lam mim is one word inay tahay hal erey ma dhahayo alif lam mim waa one word ayuu Allah subhanahu wa ta'ala but lakin if someone says hadii qofku uu yiraahdo alif lam mim saddexdaas xaraf hadii uu yiraahdo then alif is one word alifku waa hal xaraf lam is one word lamkuna waa hal xaraf mim is one word mimkuna waa hal xaraf haddaba sida waxaad ku haysataa 30 virtues 10 xasanaad ayaa sida ku haysataa Allahu akbar. Finally ugu dambeyntii make use of ka faa'iideyso this golden chance ergan make use of in badan waan ka soo hadlay saddexdaas hadii ay israacaan waa ka faa'iideyso tusaale qof haduu ku dhaho dhowr jeer tusaalahan waan soo qaatay waxa laga yaabaa inaadan muuqaaladii hore aadan daawanin make use of hadii aad aragto waa ka faa'iideyso make use of your time waqtigaaga ka faa'iideyso marka wuxuu leeyahay ugu dambeyntii make use of ka faa'iideyso this golden chance fursadan dahabiga ah ka faa'iideyso walaal oo we have aynu haysano today maanta and let us be afraid aynu ka baqno of Allah aynu ka baqno wherever we are meel waliba oo aynu joogno meel walba aynu joogno waa inaynu ka baqnaa Allah subhanahu wa ta'ala dhamaantiin walaalahay waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo bashbash baan idin rajeynayaa insha Allah sanadkaana waxaan rajeynayaa inuu noqon doono sanadkii qof waliba uu horumar la taaban karo uu sameyn lahay ahdaaftii iyo qorshihii uu degsadayna Allah subhanahu wa ta'ala waxaan u rajeynaa qof waliba inuu u rumeeyo idinkana dadaal wacan baa idin leeyahay walaalahayga dhamaantiin aad baan idin jecelahay muuqaalka xiga inta laga gaaray waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah.